Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawow daawada haddii tahay markii kuugu horeysay fadlan subscribe noo saar gambaleelkana on ka dhigo. Haddaa tahay daawada horey noola joogayna waad ku mahadsan tahay joogistaada. Fadlan like iyo commentiga dhiirigelinta waa xaggaaga. U sii share gareeya walaalihiina kaleenta si ay uga faa'iidaan fiidiyoyadeena qiimaha badan. Fadlan fiidiyoyadeena hore u sii raac, waxaa ka heli kartaa deeni isugu waaweyn gabayo dhiirigelin isqurxin cunto karin. maasha Allah tabaarakallah waa channel aad u dhameystiran. maasha Allah tabaarakallah inaa wax badan ka faa'iidinaya rajeynaya biidni raxmaan. haddaba topigeena maanta muxuu ka hadlayaa, muxuu ku saabsan yahay? wuxuu ka hadlayaa hadduu ilaahay. Asalaamu calaykum. waxaan rabnaa maanta inaan ka hadalno topic ku saabsan timirta iyo faa'iidadeeda. faa'iidada koowaad ay timirta leedahay: timirtu waxay dhintaa heerka kolestaroolka dhiigga, waxayna ka ilaalisaa xididada dhiigga qaada qallafsanaanta sababtoo ah waxaa ku jira timirta maadada loo yaqaano bactin. Lambar 2, waxay ka hortagtaa kansarka xiidmaha, waxayna ka ilaalisaa xanuunka baabasiirka, waxayna yareysaa dhagxaanta ku dhasha kaadiheysta. waxay sidoo kale fududeysaa marxaladaha uurka iyo dhalmada iyo dhiigga ka dambeeya dhalmada. waxaana ku jiro fibers wanaagsan iyo sonkoro dhaqso u riiqmaya. Lambar 3, waxay joojisaa in ilkuhu uu suus galo sababtoo ah waxaa ku jiro maadada fluoride. Lambar 4, waxay ka ilaalisaa jirka sumaha waayo waxaa ku jiro maadooyin sodium, potassium iyo vitamin C. waxay daweysaa dhiig la'aanta sababtoo ah waxaa ku jira maadooyinka iron, copper iyo vitamin B2. waxay daweysaa jiljileeca lafaha oo waxaa ku jira maadooyinka calcium, potassium iyo vitamin A. waxay daweysaa appetite la'aanta sababtoo ah waa maadada potassiumka ay ku jirta. waxay daweysaa itaal darrada guud ahaan iyo wadne xanuunka oo waxaa ku jira maadada magnesium iyo copper. waxaa ku jira maadada selenium oo ka hortagta kansarka. sidaas darteed baan dadka ku nool meelaha beerta timirta u aqoon kansarka. waxaa ku jirta maadada daweysa itaal darrada xagga galmada. waxaa ku jirta maadada boron oo aad u daweyso rheumatismka iyo kansarka maskaxda. waxay daweysaa qaleylka, dubka iyo indhaha quruxdooda waayo waxaa ku jirta maadada vitamin E. waxa ay daweysaa xanuunka ku dhaco mashiinka cunto riiqida waayo waxay ku jira maadada vitamin B1. waxay daweysaa timirta daatada iyo daalka indhaha iyo qaleylka afka iyo infekshinka bushimaha. taasi waxay sahlaysaa maadaama vitamin B2 uu ku jirto timirta. waxaa ku jira maadada daweysa infekshinka dubka ama jirka. waxay daweysaa dacarta caloosha waayo waxaa ku jirta maadooyinka calorie, sodium iyo potassium. waxa ay daweysaa xanuunka ciridka ku dhaca waxaana laga helaa vitamin C. halkaasi waxaan kusoo koobaynaa maanta faa'iidada laga helo timirta iyo waxtarkeeda. fadlan hadduu fiidiyoogan wax ka anfacay u sii share garee walaalahaaga kale si ayagana uga faa'iideystaan. like iyo commentigana waa xaggaaga insha Allah. asalaamu calaykum. haddaa channelka ku cusub tahayna subscribe noo saar gambaleelkana furo. fi amaanillah. kulanti dambe.